toddobadii Sebtembar 2016 ayuu aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen ku baaqeen xorriyadeeda la soo celiyo. habeenkii ku xigay waxaa la wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi hadaladiisina waxa ka mid ahaa kuwa qori sita ayaanu dalka ka xoreynay kuwa qalinka sitana waan ku xoreyn doonaa ma yeelayno qalin duuro budcad ah oo dadka baadha inuu wax lagu qoro yaab laba nin baa markaa ninkaas u xidhnaa anigii nin Jaamac Axmed Ogle leeyahay oo sanad lagu xukumayo jeelka weyn ku jira jawaabtiisa noocaas ay noqotay habeennimadii ku sii xigtay oo 9kii Sebtembar 2016 ahayd ayaan culi gabaygan uu magaciisu yahay Murdiso aan kaga warramayo sooyaalkii Maxamuud Xaashi iyo waabayda uu cabayo waxaan ku carrabaabaya adeegayaasha ay saami wadaaga ku yihiin dhigmeeradka iyo dhaca maatida gabayga magaciisa waxa la yiraahdaa Murdiso wuxuu yiri dhaaxaan maldahay oo tix gabay muunadeyn jiray haddii uu sidaad moodayseen maanta noqon waayo maxishoodayaal dhowr ah baan maagis leeyahay maansada dar ii goodiya loo murxinayaaye murjinkaygu wiilkan ku gano maydhadu jariye meeqaamka aan kala geynaan muuji leeyahay maqla caawa duul buu ku yahay moorin oo kale mansabyada aqoon iyo kartaa lagu mutaystaaye adigoon mas'uul noqon karayn maandhe abidkaaba maangaab xigaalka ah baa maamulka dhigaye inkastood mudnaan sheegatood madaxa markii oo tabixaan hadeer maragu haystaaye maalmihii daraaye SNM mooshin lagu ogiye adigoon miciin fidan kolkay murugtay hawsheenu midabeeyihii baad ahayd maandhe soo qaxaye mishiigaanka kii qaatay ee faqash muhiibsiiyey ee maalka nacab siinayo maalay baa tahay in mujaahid aad sheegataa waa maroor darane mar kale waagii xil qaran maayar lagu saaray manaayi burcee aad sidaan wali madoobaane maatada la laayiyo wixii maxasago moobay iyo miinadaad aastay waa meeris ku qorane malkada sanaag uumiyay mawla ku abuuray maxamuud waxa tahay kuwii maaruqeed dilay haddii aan adduunyada maxkamad maandhe lagu keenin manaxow godkii aakhiru malagu joogaaye muldii cadaabkii allana meesha uu yahay magacaabistaadii kolku minister ku saantay ee uu madaarada arliga midgta ku saaray mashruucii Kuwait waan ogaataad ma kaleyseen malaayiin kun oo dollar baad maalin shubateen magaalada Hargeysa ilaa moolka Yurub tooxa minankaad ka soo iibsateen waa masku dhigane madowgiya cadaankii bulshada mawla nagu uumay musuqmaasuqaagay dhammaan madaxu haystaane matagiyo kolkaad Xaashi oo mililka sayleysay eed maagtay qoysku ahaa meeris kugu sheegay madaxweynaheeni cigaal wad muglu yiri magacu baxshaan ka harayn meel kasta tahay madax dhaqan Cismaan baan kal hore muuqa daawadaye macsi iyo xumaatay baryahan muruq yeesheene naanays ma guurana haba igu maqaalaaye sida muhanadkii filinka dhigay looma meel daye ceebtaada waxa meelayaan maan ku garanayne murtiyahan uu jilib dhigeen ruux magaanahiye muusiya hadaad didad ku tiri moodkayla booba macna yare walaa Umar baan meeriska celine malugta iyo saadaal hadaan minanka faaleeyo oo aan manaasiisha dayo maayada kiciye muddo kooban weeyaan intaad madasha joogteen ismacaashintaadan dhawaan meel mar noqonayne mar yahay aanan dahab kolnaba kula maseeyeen wax ismuujinta xigi inuu madow ku fuulaaye mijir iyo awood ciidan baad magansanaysaa maxbuusnimadu way ku dambeyn maasha aayaha madfac iyo rasaas iyo hadaad miina igu xeerto maqaarshaar inaan ku noqdaa waa midaan dhicine mid haylaha dhintaad wadaan mangal ku noqone isagoo macsuumoon kolaba xuma maleegaynin nabi maxamed qaar baa lahaa waa magnuun falan allahumma salli wa sallim wa barik alayh masabidida caasha la yiri waad mar furateene mandeeliyo hodraawina horay nimanu maageene malmaluuq raadku ka tago waan masaxayaaye macmal iyo hadii eeda jaan la igu soo miiso meeqaamku inuu ii kordhiyo magacu mooyaane milgahaygu lumi maayo oo uu mug weeyahay inta aan martabad gaadhayeen maatir noqonayo ee maanku gabay iyo tixiyo maansa tirinayo ama aan maqaal qoriba karo ma kuwa farale ismu qoonin baa noo axdiya mowdka on dhicine maqaarkii intay dhaaftay idil marinadii dhiiga micidiinu dhuuxiyo laftii way mudmudaysaaye ma dharaari dhidarkii raqaawu mafsuud noqone sida aar mudkii ruugayay meeliqsanayaane
magacoo la dhowrtaa ka weyn maa la weecsada mahmaa xun baad kaga tagteen meesigii qarane mugdii haw dalkaad boog ku tahay waanad madhiseene midha iyo hadday noo baxeen muuska iyo liintu murdisoy intaad xaabiseed muudsataa badane maandariinta waagii la helay malabka doocaanka macan jecel ku soo xoontay baa miirtay waayadane mahiigaan haddii uu arliga maanshan ugu hooro macquul maaha koox qudhi inay maaxda dhurataaye maandeeq haddii ay dhashiye madiga geeleennu makas iyo saboo loo lisaa ugu mudnaan layde walee maansamaan nacay inaad maasho keligaaye mushahaar toornimo loo baxshaa waa madhnaan kale haddii aad malaaq soo dirtiyo miidha igu xeeran maskaxdayda wixii aan gelayn lama marsiiyeene haddii aad qoraayada mintiday mara dul saarayso qalilmaalka lama ceejiyo miid hor luu qubiye muusanowgu wuxuu horinayaa dul mawaabta ahe makhluuq yahow waxaa kugu fatihi mawjad xoog badane cidda daadka kaa moosaysana mooyi baan idhi sida macangag oo kale haddaad madaxa taagayso murta iyo qadhaadhka iyo sharkaad mahadin doontaaye intaad muusanowdoo qudhaan maluhu koobayne manaayuhu hadduu kugu dhib yahay way macaan yahaye mashaqadu kolkii ay dhacdaan farax mushaaxaaye marsadii shirkeediyo kobtuu madarku gowdiiday malaalow dhawaaqaad ka tidhi maangad lagu sheegay haddaan miimka soo xidho anoo mahadhadii qeexay maankayga anigoon bedelin maan dhowaan bixiye macsalaama waa saban guntii maamul loo xulay macsalaama waa saban guntii maamul loo xulay hanjabadaas uu jeediyey maxamuud xaashi cabdi waxa ka hadlay xogayihii guud ee hore ee qaramada midoobay Mr. Ban Ki-moon 9 January 2017 marka wuxuu la yaabay sida uu saxaafadda ugu sheegay budcad hadalkaasina meel dheer buu ka dhacay waana ogaan kiiskayga la gaarsiiyay xogayaha ama wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo Soomaaliland kale caalamkuna uu iska warhayaa gabaygan kale ee isagana garsoor la yiraahdo waxaan u mahadnaqayaa garsoorkii sida fiican u shaqeeyay sidoo kale waxaan gabaygan sameeyay mar maxkamaddu ay waaran u jartay oo maxkamadda la hor keenay nin kamid ah kuween sheeynay oo maragnimada maxkamadda diiday inta marka hore kiis la iska soo gudbiyo ayaa marka dambena la maagaya gabaygan waxa la yiraahdaa garsoor wuxuu yiri dhaaxaad gabaan yahow sharciga gees ka marayseeni dhaaxaan nin godobtayda qaba goobay oon rabaye gandahaygu maantuu ku wacay giigtay kulankiiye guulaha intaad dhaar martaan tiradu goynayne mar haddaan guntaadii war helay goohu wuu bi'iye galiilyadu aday kuu dambayn geelankaa dhigaye inkastuu gadaafiye shar iyo gaadmo libin mooday markii ay garsooradu waceen giiji madaxiiye gabashada kolkuu dhuuntay uu geedka iman waaye mar haddiiba gaas iyo bilays amarka loo geeyey oo guuto xoog leh hadeer goobtay madaxiisa oo waaran gabalkiisa rida xadhiga loo gooyey oo uu gasiinkiiyo ka tagay guri la raaxaysto gar alle farduusay hurdada waan ku gamayaa gurmad bay xog reebiye ahayd gaadihii dhacay gardaadshaha Jamaal Cali Xuseen waajibkii gudaye giddigood qareennada xurma guudka loo suraye garyaqaan Mandeelow adaan geesi ku qoraye guulayso weliga shabeel geedla baa tahaye garashada ciyaalow adaa tiisani geeyay geel jirana waa ii laf dhabar wana ruux gobe jaamac waxaan guddoonsiinayaa qiimo aan gudine haddii uu guyaal jeelku guri iiyay xilligii gafkaygiyo waxaan galaya eedaynta iyo xeerka la iskarab dhigay lagu go'aan qaato gibir iyo haddii uu xabsigu guudkayga fuulo xukunkaygu gaduhu naqdaba waa lagaan tiriye wale geeri mooye ifkaan lagu gumoobayne wale geel dhalan qaaday baan gaadhin beel kale guduudkaad arkaysiyo bishuba way ku soo gabiye wale guuldarraa ku dambayn jeer la gaadhabe godka aad ku sugantay biyuhu kugu galayaane galiilyada wale waad dhadhamintii gobtahanyaaye garaadada intuu kaa tiraad gibil madoobaane gudin iyo markii xoolihii gaatir lagu sooray garaadkiisu suu sooray waa geelu tuu cunaye gacalnimo ninkii aasayba gooha waaqlada gunnimiyo waxaad qaadateen giniya naareede gambeelan xalkaha qaabada igu gunideene gafka iyo markay daanna iyo hawli kala gaadho ama aanu xaajada guracan gees ka kala joogno gaaroodi ehelkii ka yimi iima goodiye gabiilayda iyo reer garadag ima guhaadshaane gobol soola goobaha diliyo uunka golis yaala
madaweyn gunteeda iyo dacar goodiyada ceeri gobta saaxil iyo hawd ku nool waan afgaran laaye girdidkaagu meeshuu ab yahay waan la garanayne gardarradu nimay ciishay oo guusay nacabkiisu gamas iyo waxaa hiil u tara gowraciyo dhiige mar haddaan sidii guurtiyad lagu gorfaynaynin ma hadow guddoonkaan lahayn waan guntanaynaaye gar cadaawo jeeroon rag xuli gaar wax ugu eegin cabdiqani walee guluf dhiciyo gaad muwaafara leh gurux yahaw ilmeeyaa kolbaad joojin gororkaase gacmo yahaw la soo xidhay mar baad leebka ganaysaane luga yahaw guclada doonayaa gaabismaad noqone haddii aan garowshiiya iman waa la geediiye garaadka iyo maankow hubaal guuxu wuu damiye gurxan khayr le maqalkow dhowaan gaaxdi way imane gantaallada fartaydaa qortay kuma gumeeyeene walle erayadan kugu godlado way gubtahayoone tiro go-aan ma sheegaaye iyo gelina howleede goldolooladeedana in badan giijimaan odhane anigoo galoolay baryahan geedxun ii hudiye gomashow markii aan ku cunay kaalin baan gabaye adigaa inaan gaba xaqiyo guuldarraan dhale muddo gaara inaan kuu muudaa wayga garanuuga iguule allahayow adaan ku gargaar wacaye iguule allahayow adaan ku gargaar wacaye ayuu gabaygaasina ahaa markaa xaalado kala gedsan buu ka warramayay isaguna labada gabayna waad ku mahadsantihiin sida aad u dhagaysadeen qaybtii labaad bay ahayd